kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar labaad iyo barnaamijkeennii taxanaha ahaa aynu kaga hadlaynay amaba dadka aragtidooda aan idigu soo gudbinaynay barnaamijkaas oon diiradda ku saaranay hadalkii doctor Gaboose ka soo yeedhay iyo weliba shacabka reer Somaliland gudaha iyo dibaddaba mucaarada iyo maxaafisida ay uga dareen celiyeen haddaba dhawaan ayay ahayd waxaan idigu bilaabi doonaa intaanan dadkeedii soo gudbin ugu dambeeyay waa qaybtii labaad ee ugu dambeysay waxaan idiin soo gudbi doonaa warbixin qoraaleed kooban oo iyadana qudheeda habboon in aan idila wadaago oo lay soo diray waxaa daawadeel dhawaan haddaba saxaafadda gudaha Somaliland gaar ahaan Hargeysa la hadlay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo runtii anigu wuxuu yidhi Gaboose wuxuu ahaa dadka aan taageersanayn una hanweynayn balse hadalkiisa way ka hoostay oo ereyadii uu isticmaalay sida jeegaan iyo waxa la midka ah wax laga filayay Dr. Gaboose ma ay hayn Dr. Gaboose waxaan moodayay buu yidhi inuu fahansan yahay macnaha dimuqraadiyadda oo ah in qof kasta codkiisa xoro yahay magaca uu doono hasito in lagu afligaadiyo inaanay habboonayn haddaba Dr. Gaboose ma wuxuu caayay buu yidhi dadka codkooda dhibanaya amaba dadkii codkooda bixiyey midda kale Gaboose hadalkiisa waxaa ka muuqatay buu yidhi haddaba cadho badan dadafayn iyo weliba afligaadooyin qaawan Dr. Gaboose miyaanu ogeyn buu yidhi in gudoomiyaha xisbiga wadani ay isku qolada yihiin amaba isku reerka yihiin inuu diiday natiijadii doorashada ee lagaga badiyay dadkana been uu sheegay oo uu yidhi waa lay boobay codkiina waa layga boobay walaalayaal doorashada madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Somaliland ee noo qabsoontay 13 November waxa ku gadaaman madmadow fara badan kaasoo dhaliyay musuqmaasuq iyo ku shubasho baahsan oo ka dhacday dhammaan degmada doorashooyinka Somaliland waxa kala dhacday doorashadan inay suurto gashay in dad geeriyooday Ilaahay u naxariistay ay codeeyeen waxaan shacbiga reer Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba u xaqiijinaynaa una sheegaynaa inaan aqbali doonin hadduu se doctorku hadlayo miyaanu nin walba runta u sheego oo wixiisu mahiil bay ahaayeen odayga ugu dambeyntii warbixin qoraaleedkan daawadayaal waxaa lagu soo gabagabeeyey Dr. Gaboose waxaan oran lahaa dadka codkooda iyaga xor u ah ninka ay siinayaan iyo cidda aanay siinayn balse ninka leh buu yidhi maxaa layga badiyey iyo weliba haddii layga badiyey dhulka ayaan gubayaa oo hal rogmado waa xisbiga aad ka tirsanayd ee wadani ee ogow buu yidhi dadkana waxaan jirin ha uu sheegin nin qaran ayaan ku haysanay balse waxaad noqotay nin qabiil daawadiil haddaba waxaan idin kala bixi doonaa codadkii dadka runtii igu xidhan ay soo gudbiyeen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إدريس محمد أبشد إن هذا آدم كسلام يا وريه إدريس آدم كسلام يا إن هذا واحد على استي هلكا أهرنا تصورك تي أو Gaboose أهركيسة وهذلي إن بدرنا Gaboose صحافة سياسة وكمقنا أهركا وmaanta hadlay ee curfigu ku dheehan yahay hadii xugmaayo cadaafadaysan inaan ka hadlo ayaan jeclaystay kulley lambarkaaga ayaan raadiyo waan soo helay waana ku taageerayaa sida wanaagsan ee cadaaladda aad uga shaqaynaysa reer Somaliland qof wariye ah oo cadaalad ku soconaya cidna aan ku bayreyn cidna aan u eexanayn sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri u soconaya adiga mooyaane horta maana arag waan kaaga mahad celinaynaa dadku iyadoo isku kamid yihiin cidna aanad waxba ka sheegin haddana inaad bulshada Somaliland la wadaagto wixii adigu aad markaa yacni fikradaadu ay ku siiso inay si kastaba ha ahaatee Somaliland aad soo dhex dhigto oo bulshada Somaliland mid mucaarada iyo mid maxaafida iyo mid kalaba aad dhex dhigto waad ku mahadsan tahay maanta markaan arrintaa ka hadlo inkastoo waxaan ku wari mar hore aad soo dhigtay si aan hadda helay haddana fikradeyda ayaan ka dhiibanayaa Soomaalidu waxay ku mamadaatay sabadaryeela ayaa tu kala ku dara han buu doonayaa han buu leeyahay xusbi uu watay wasiiruu ka soo noqday dalka Somaliland intaaba hadduu cid hanti ku caayayo ama ku leeyahay dhul baa la boobaya ama hanti uu ku caayayo wasiirada soo maray Somaliland buu ahaa barta madowna kaga jira
maadaama taa ahaa waxaan ku uri waxaa la eegaa oo la eegaa dee $50 ayaa dhakhtar buu ilaahay aqoon buu siiyey. dalaan la ictiraafin baynu nahay, dal yar baynu nahay, nin waliba aqoontuu leeyahay inuu dalka geliyo ayaa waajib ah. waa kii bulshada tabaalaysan ee dhibirka laga hayo waxaan ku uri $50 oo loo baaheeyo loo ururiyey ayuu yidhi aan ku eego. maanta kii odhan lahaa dad baa silicsan iyo dad baa dhibaataysan iyo dad baa kala qoqoban ma aha. markuu uu isagu bilaash dadka ku daweeyo ee uu yidhaaho waanu cadaalad falaya ayaa dadku u qiri lahaa. se nin $40 yidhi ha laygu arko ama $50 inuu maanta somalilan wax u tilmaamo meesha kuma jirto. madaxnimo iyo han siyaasadeedna ka doonaya kii ka hadli lahaaba ma aha. waxaa kaloo jirta qabyaalad markay tahay qabyaalad kii ku dhaqmayay waa isaga. gacan libaax shirkii buu dhex fadhiyey. waxaan ku uri jabhadaha uu sheegayu ka hadlayo ayuu taageeraa. $50 masaakiinta ka qaado ayuu ku daweeyaa. masaakiinta ka qaado ee loo soo baaheeyey ayuu caare iyo ciidankiisa kusoo taageeraa. wixii jira ee xaqiiqaa dadku caqli bay wada leeyihiin. qof aan maanta reer somalilan oo aan wax kala garanayna ma jiro. qof waliba uu reer somalilan siyaasiyiinta ah joogta kii wax u qabtay iyo kaanu qaban reer somalilan waa ka dheragsan yihiin. reerna qof xuni maaha. reerna laguma dhaliilayo. se qofka xun ee dunta ka xun waa dareemi kartaa. marka waxa weeye maanta hadalkaa uu ku hadlay hadal somalilan dhegaysanayso kolley dee in dhegaysanaysaa way jirtaa. se majority 95% hadalkaa ma dhegaysanayso. hadal daacada iyo dadbaa baaba-ayna kama aha. waa hadal haddii xog waayo samir taag waayo waanu la garanayn dee wuxuu ku socdo ujeediyo ka jeeda lahayn. $50 ee dadka masaakiinta ah u leeyahay laygu arko yaa ha iska daayo. kaa markuu waxaan ku uri isagu gunta ka soo asaaso ayay noqonaysaa inuu ka hadlo. marka waxaan leeyahay bulshada reer somalilan war inagu shacabka reer somalilan oo dhan waxaan leeyahay war waynu garanaynaa ninka wax inoo qabta iyo kaan wax inoo qaban iyo ka wax inaga wada iyo ka wax inoo wada waynu garanaynaa. qof xununa qabiil ma leh. wuxuu yahay unbuu yahay. gabooso waxaan leeyahay dadka masaakiinta $50 horta adigu halkaa kasoo fuuriyalo masaakiinta calaacalaysa intaad ka qaadaanad u imanayn isagoo xanuunsanaya halkaa ku dadaal. ilaahay baa aqoon ku siiyo nin reer somalilan dara baa tahay oo rag baa u dhintay dalkoo rag baa usoo dhaawacmay. adigu aqoontaad baratay uga faa'iidee bulshada somalilan mid iyagoo isku kaamida. markaas xaafadda kasoo hadal siyaasadana soo gal. aada iyo aad baan nii salaamayaa. qof xuni cid maaha. bulshada reer somalilan waxaa kula dardaarmaya war qof xuni cid maaha. yaanu ina sumaynin qofka xanuunsanaya wax iska odhanaya yaanaynu buunbuuninin. yaan taasaan leeyahay. aada iyo aad baan adigana in adeer ku salaamaya. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bulshada reer somalilandna waxaan leeyahay hore socod baynu gelaynaa. dalaan la ictiraafin baynu nahay. waar aynu midnimada ku dhimanno. reer hebel waxba ku geyn mayso aakhira ku seexin mayso. midnimada aynu ku dhiman. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waan ku salaamayaa idris dabshid. waxaan kaala soo hadlayaa dalka Canada magaalada Toronto. waan ku hambaleynayaa shaqada fiican ee dalka Somaliland u haysid. ilaahay kula galo adiga inta wanaaga ka talinaysaba. wixii xumaad wadana ilaahay waxaan u baraynaa inuu ku celiyo xumaanta iyo wadaan. waa makaru waa makrallah wallahu khayrul makirin ayay ilaahay quraankiisa ku sheegay. marka ilaahay waxaan u baryaynaa inta xumaanta wada in xumaantooda ku noqoto. inta wanaaga wadana wanaaga ilaahay u fudeediyo oo shaqada ay qabtaan ilaahay u fudeediyo. wixii wanaaga wadaana mar walba way adag tahay. shaydaan baa hareeraha kusoo istaagaya. intaa waxaan kaga gudbayaa arintii dhakhtarka Boose iyo
somalilan madaxdeeda iyo dowladaheeda iyo wadaad salaadiinteeda isu tirinaya meelaha soo fadhiista. kow dhakhtar gaboose intaa waa nuga hanweynaa, ninkan oo dhakhtara oo 30 sannadood horteed wasiire ka ahaan jiray wadankii somalilan soomaaliya la oran jiray, nin mutacalina, nin dhakhtara, nin madaxa, nin sharaf leh ayuu ahaa. marka aad baan uga naxay siduu u hadlay. horta wuu is-sharaftiday, sharaftii ayuu iska xayoobiyey. waayo qofku markuu isku soo koobo meel yaruu si yaroo fudud u hadlo, isagaa sharaftiisii meel kaga dhacay. marka sharaftuna wax walba iyadaa ka qaalisan. fooqaqa dheere la dhistay sharaf xun, qofka hadduu sharaftu ka xayubanto ayaa waxba kuu tari mayso. marka anigu dhakhtarka waxaan ku oran lahaa wadanka sidii aad wax ugu tari lahayd, oo nimankaa dhakhaatiirta ah la sheegaya laleeyahay wadanka ayay xataa ku yimaadaan iyagoo oo waxyaabo false ah oo aan shaqayn dhakhaatiir hagaagsan ahayn ay wadanka dhakhtarnimo ku joogaan. kuwaasoo kale inuu baaro wadankan waxtarkiisa inuu ka shaqeeyo, dadka masaakiinta ahna uu u naxariisto, oo uu dhakhtarkiisa ku sameeyo meel dadka baahan la siiyo lacagta laga yareeyo, oo $10 looga dhigo sida meelaha dhakhtarada kale iyo hosbitaalada kale. waxaan xasuustaa Adna Aadan maantii meeshiisa la furayay waxay ku tiri ha u malay inaad ka taajir noqonayso. Adna Aadan waxaan ka markhaati kacayaa oo dadkii hosbitaalkeeda galay ay iiga sheekeeyeen inay markay oreysatay inuu qofkaasi ninkeedii dhintay ama ay dhibaataysan tahay lacagtii laga daayay. dhakhtar loo furay weeyaan, aan loo furinin in lacag laga sameeyo. marka waxaan u rajeynayaa lacagta adduunku qiimo ma laha, inuu dadka u naxariisto, uu dadkiisa u naxariisto, oo tan wuu ka tegi doonaaye dadka uu u naxariisto. oo dadka 3 habeenimo queuega u galay ee bisha sugayay ee meelaha kale ka yimid, dad baa bari ka yimid, dad baa koonfur ka yimid, dad baa galbeed ka yimid, marka ugu dambeysa la oranayo dhakhtarkii naxdinta ka gaadhaysaba ma aha. marka inuu dadka ishooda iyo naxdintooda iska ilaaliyo, dadka u naxariisto, dadka u dhibriyo, wixii isagu xaggiisa dhakhtarnimo ah iyo aqoontiisa ah dadka ugu isu naxariista baa ilaahayna ha idin naxariista. anigu intaasaan isaga kula talin lahaa, oo inuu siyaasadan iyo qiila waqaalayo yaa yidhi iyo yaa kan uu ka baxo. waayo qof walba hadduu iska dhabaqsado uu sidii u hadlo qof aan waxba ahayn, way adag tahay. dadkeenu waxbayna haysta. sheekh dhakhtarkii iyo muxuu ahaa salaadiintii iyo qof walba hadduu waxaan businesskiisa ahayn galo, waa la isku daalaya. aynigay la tahay dumarku caruurahooda iyo reerahooda ha ku mashquulaan. wuu naga nixiya anagoo iskaga mashquulsan caruurahayagii iyo reerahayagii iyo dantayadii oo dalka wanaagiisa uun jecel ayuu aada nooga nixiyey. waayo markuu dhakhtarkiisa u hadlay, dadka yareerna maxaad u malaynaysaa? maxaa la yidhi geela markay aarankii muxuu ahaa duqdiisii durduriso aarankiisana maxaad u malayn? saxa haddaan qalday mahmahda. markaa waxay aniga ila tahay inuu apology weyn ka bixiyo, uu dib isugu noqdo, uu isagu dadka u naxariisto. dowladduna gorgortanka iyo inay cid walba u jawaabtay iska dayso. salaadiintuna yowyowda iyo qabyaaladda halkaa la soo fadhiisanayaan iska daayaan. haddii kale naxdinta idin kaartayda idinku wada dhaciyo wallahi idinku halkaa wada cararayo wada waalan baa laydin arki doonaa. ragow haddaad fadhiisan weydaan oo xumaanta joojin weydaan, hadhow toole taa idinku dhacdaa. naxdinta every single day maalin kasta naga naxinaysaan waxa weeyaan waxa dumarku halkaa usoo fadhiisanayaan oo yowyowleynayaan, ay isugu cayn isu tirinayaan. waxa weeyaan qofkii markuu naxo wuxuu doonuu ku hadlayaa. weligiiba ma soo hadlin, waana maanta idinla hadlaya. naxdinta naga daaya, caruurta naxdinta ka daaya, ubadka dumarka naxdinta ka daaya, wadanka naxdinta ka daaya.
danihiina qabsada dantiina ku foofa wanaaga ka taliya qof walba wixii lagu diray qabo waxaad takhasus ku leedahay ka shaqee allah inoo naxariisto aan ducaysano asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idris aad baan kuu salaamay aadna waad ugu mahadsan tahay fikirka aad noo soo bandhigtay ee dadweynaha qof walba aragtidiisa dhiibanayo anigu waxaan ku noolahay wadanada Scandinavian-ka Yurub wadankan samar walba waan imaadaa waxaan arkay waxa aanay aad ka qaracmayso dadkeenii cid u naxaysan male masaakiintii danyartii cid u naxaysan male dadkii baahnaa cid u naxaysan male nin wal oo meel loo dhiibaana meesha loo dhiibay isagaaba iska yeesha dhaqaalaha gaalada iyo adduunka lagaga soo urursanayana nin waliba isbaaru u dhigto meel buu u fadhiistay ilama nin maanta xil qabtaa oon markaaba guryo dilaacsanaynin ma jirto dadkeennana waxaan ku canaananayaa ummadda shicibka ummadana waxaan ku canaananayaa dowladuna khaladka male shicibkiibaa arkaya oo iska dhaafaya oo qabiil ku taageeraya inaa waxa weeyaan lasoo qabto ninka wasiirka shalay noqday isagoon waxba haysan hadduu doono jaamacadeer wax ka dhigayay baa wasiir laga dhigayaa intuuna sanadba joogina gurintee la dilaacsanaya waxay ahayd arrimahaas oo dhan in dacwad laga qoro odhadkii baan shaqaynaynin weli lama hayo nin lasoo qabto ama DG ha noqdo ama wasiir ha noqdo oo maxaan ku idhahdaa lagu haysto xatooye xoolo dadweyne ama xoolo dowladeed marka dhibaatooyinka ummadan haysata masaakiinta ah way badan tahay gaboose hadalkiisu wax badan oo saxaa jiray in badan oo aan ku taageersanahay baa jira waxaa jira wadankii waa la baabi'iyey baabu-una kani hadda biixi uuna maahina kii siiraanyaba wadanka waa la dhacayay waa la iibsanayay 40 milyan haysta marka waxaasoo kale ay dadku maqlaan wuu ku ag socdaa waa uu joogaa maxkamad lama saarayo lama dacweynayo afkiisa laga haya 40 milyan haystaa la yidhi anigu dhagahaygaa kumaan maqlaynin marka waxa weeyaan wadankan dhakhaatiirtu naf uma hayso oo gaboosiyo gruubkoosu dadkan masaakiinta naf alla nafayo hayaan ma jiro dhibaatay dadku ku qabaan gabadhii oo ilmo lagu qalayo oo ilmihii maxaan ku idhahdaa sakaraad gabadhii ah ayay leeyihiin qof ehelkeedii ha yimaado oo qabiilkee ku qabiila oo la garanayo saxeexa dhaqaalaha nacminaan lacagta hadhow qofka ka helayno baadiyaaba laga keenay gabadhan yar xoolaba ma haystaan baa dhici karta ama magaaladiiba ku noosha waa reerka danyarada ah marka dadkeenii danyarta ahaa dhib weyn baa lagu hayaa ilaahay bay leeyihiin nimankan dowladaha loo dhiibayaana ama madaxweynaha noqdo ama ku-xigeen ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama DG ha noqdaan ama dhakhaatiir ha noqdaan ama ciidamada madaxa ka ahaadaan dadkii masaakiintii waa lagu dhaqaalo tirsanaya dhaqaalo unbaa laga urursanaya marka ummadan ilaahay bay leedahay waxaan leeyahay gaboosana hadalkiisu aniga waxaan 100% aaminsanahay hadal sax uu ahaa aragtidiisuuna ka hadlay inkastoo isaguba dhaliil leeyahay oo dadka dhakhaatiirta dhiigga ka miirata uu ka mid yahay ummadda masaakiinta ee danyarta ah iyo ummadda bugta iyo ummadda dhibaataysanba aad baan kuu salaamaya walaal aadna wada mahadsantahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم إدريس محمد دبشدو والله الساعة داسن سوتشي دايدو waxaan xilliga anigoo soo hurtaan ka soo kaxoon dib u soo eegay barnaamijyo badan oo soo galisay meesha waxa sameynayaan dadka wadanka jooga habareer iyo dadka halkan joogay qaxootigiiba wax loo dul qaadan kara maaha nimanka halka ka soo caytama markay baladho qaydin wax waayeen oo intooda badan waxay u badan yihiin kuwa meelaha ka soo tahriibay inkastoo qaar badan waqtiga ku meeshan ay ku adkaato nolosha ku adkaato inay ka buuxaan haddaad aragtid nin Yurub ka soo caytama reerkii la noolaan kari waa islaantii albaabka ka xidhatay isaguna gidaaradu ku nool yahay oo kolba xaafad buu la seexdaa ama kolba meel gidaar buu seexdaa nolol adag buu ku nooleeyay waa adoo kuwa intooda badan YouTube-yada soo fadhiista marka kuwiiba suuq imika helo farmaajo uu lacag u qoray kiniisadii bay iska daayeen bi xogaaga yar doonanayeen nolol ma haystaan kuwa dibadaha joogay horta soo qaylinaya faa'iido male ana taa ku og waliba sidaas waxay sameysteen islaamaynta aqal xaafadaha wareegan kule YouTube wax ma ku qori kartaa Facebook wax ma gelin kartaa farmaajo ma ku amaani kartaa noocaas ka soo baxay laakiin mushkiladu raggii mas'uuliyiinta ahaa ee laga rabay wadanka inay wax ka bedelaan ayaaba maanta wax looga sameynaya Dr. Gaboose
wuxuu weligiiba aamusnaaday ninkii intaasoo sano dowladda kasoo kulmo meel kusoo jira kulmo meel madax ka aha wuxuu maanta ku hadlay wax loo dulqaadan kara maaha. marka edo waan idiin duceynaynaa ilaahay horta adig sidaadoo kale dhalinyarada ha ka dhigo, laakiin wadankan dagaal baa lagu soo qaaday. khayr badan baan idin rajeynayaa. wariyey diris saaxiib aad iyo aad baan u arkay magaraysaa warkaagii iyo saaxiib sidaad ii soo dhigtay saaxiib mar labaad iyo mar saddexaad waan kaaga mahad celinayaa. alla iyo ciise kabaan kulay allaha ku shukro saaxiib maxamed idris dabshide waxaa tahay saaxiib shakhsi howlkar ah oo difaaca mar walba saaxiib qadiyadda dalkiisa jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan. saaxiib matay dadka calooshaqeystayaalka ee filimaadka yaryar dhaafsada dalkooda. saaxiib waan ogahay inaad saaxiib shakhsi daacada tahay. waxaan kale saaxiib kaaga mahad celinayaa saaxiib sidaad iigu soo sheergaraysay. insha allah saaxiib aniguna de waxaan shakhsi maxay dalkiisa aada u jecel oo difaaca maxay ahayd wixii dambe war magaranaysaa falaqeyna saaxiib waad ila soo socosay adoo raalli haddaad awoodid. insha allah ana saaxiib fikirkayga saliimka ayaan ka dhiibinayaa. saaxiib wax kasta saaxiib qofka waxa jira magaranaysaa wuxuu soo muujisto iyo waxyaalahu laabtiisa ku qarsada wax kasta saaxiibaad jecesha ama laabta ku qarsa ama soo muujiso. idrisoo saaxiib ilaahay wax kaaga barya saaxiib inuu ilaahay ku rumeeyo wax kasta qalbigaaga ku jiro. allah ku sharfo baan ku leeyahay saaxiib. saaxiib wax walba saaxiibaad rajaynaysid baan ku rajaynayaa. وجبيني وتكون حسنت دعوة الله بس عدم السومال وصوبتها تذكر السومال لأنه وحي وباهيين وأن كلتها اللي رنتي الناس كتير سنادان شرفت ذي كرامة ولا إلى عشرة قرن بين الدقيقة إنك قبيل لما دقيقة حسبي يدني وحني وحسبي قرن لكن أنت بدن عدم السومال لما كوسو هوس كبني dhammaantiin waan idin jeclahay meel kastoo aad adduunka dacaladiisa ka joogtaan reer somalilan aad iyo aad baad mahadsantihiin. mar walba waxaan jecelahay dalkeena oo mid ah, dalkeena oo bashbash iyo barwaaqo gaadha, dadkeena oo cadaalad iyo sinaan ku wada nool. guul iyo gobonimo.